Ma ogtahay in waddan dhan dadkiisa lagu kala soocay midabka maqaarka dartiis? Mise ma maqashay magaca Nelson Mandela oo xabsi ku qaatay 27 sano siduu dalkiisa u xoreyn lahaa? Sheekadan dhabta ah waxay ka dhacday South Africa. Waa mid ka mid ah kuwii ugu xanuunka badnaa balse ugu rajo dhiska badnaa. Ku soo dhawaada videogeena maanta oon uga hadli doono wixii ka dhacay South Africa inta u dhaxaysay 1948kii ilaa laga soo gaaro 1994. Aan ku bilownay South Africa. Muddo dheer waxaa ka jiray nidaam la yiraahdo apartheid. Waa kelmad macnaheedu uu yahay kala soocid. Kelmaddaas waxaa hirgeliyay dowladdii caddaanka ahayd ee ka talin jirtay dalkaasi laga soo bilaabo 1948kii, taasoo saameysay malaayiin qof oo South African ah, gaar ahaan dadka madow oo iskugu jiray kuwa asalkooda ka yimid Hindiya iyo kuwa kale ee dalka u dhashtay. Dowladdii caddaanka ahayd ee ka talin jirtay halkaa waxay dejisay sharciyo si cad u kala soocaya dadka madow iyo kuwa caddaanka ah. Sharciyadaasoo ahaa: dadka madow waa laga mamnuucay inay degaan meelaha caddaanka ay degan yihiin. Iskuulada, isbitaalada, tareenada iyo suuqyada waxaa loo kala sameeyay labo, oo ah kuwa dadka madow iyo kuwa dadka caddaanka ah. Dadka madow ma lahayn xuquuq codbixineed, sidoo kale lama ogoleen guurka u dhaxeeya dadka madow iyo dadka caddaanka ah. Waxaa kaloo jiray in qof kasta uu sito kaar aqoonsi ah oo muujinaya qowmiyadiisa. Ujeedooyinka laga leeyahay sharciyadaas oo dhan waxay ahayd in la qariyo dadka madow xuquuqdooda oo ahaa tirada ugu badan halka. Sidoo kale dadka madow waxay noqdeen dad la faquuqay, la cunsuriyeeyay, laguna haysto cadaalad darro weyn. Aan dib u laabanay sanadii 1918kii. Wiil yar ayaa ku dhashtay tuulo yar oo loo aqaano Mvezo ee gobolka Eastern Cape ee South Africa. Wiilkaas oo lagu magacaabi jiray Rolihlahla Mandela, taasoo afkooda ahayd kan wax burburiya ama dhibaato sameeye. Qoyskiisa waxay ka tirsanaayeen qabiilka Thembu, wuxuuna ahaa wiil reer beereed ah. Aabihiis wuxuu ahaa taliye dhaqameed oo lagu magacaabi jiray Gadla Henry, balse markuu yaraa ayuu aabihiis dhintay. Kadib geeridii aabihiis, Mandela waxaa la geeyay qoys boqortooyo ah oo reer Thembu ah. Halkaas ayuu ku soo barbaaray. Kadib waxbarashadiisa hoose, Mandela oo macallimiintiisa ay u badnaayeen caddaan ayay u bixiyeen magaca Nelson, taasoo ay jeclaayeen inay qof walba u bixiyaan magac caddaan ah. Mandela ayaa isu maray waxbarashada heerkeeda kala sarreysa sida college-ka, university ilaa uu ka dhameeyay. Mandela wuxuu aad u jeclaa waxbarashada. Wuxuu baran jiray taariikhaha qabiilka iyo sheekooyinka halgamayaasha. Kadib waxbarashadiisa, Mandela wuxuu noqday mid si cad uga soo horjeesta dulmiga, cunsuriyadda iyo kala soocidda dadka. Taas ayaa keentay inuu ku biiro halgamayaasha siyaasadeed, gaar ahaan ANC loo soo gaabin jiray African National Congress. Sanadii 1962, Mandela waxaa lagu eedeeyay in uu qorsheynayo kacdoon hubeysan. Waxaa lagu xukumay xabsi dhan 27 sano. Badankood ayuu ku qaatay jasiiradda lagu magacaabo Robben Island. Inkastoo uu xirnaa, Mandela wuxuu noqday astaanta u taagan xorriyadda iyo halganka. Sanadihii u dhaxeeyay 1980 ilaa laga soo gaaro 1990, cadaadis caalami ah iyo kacdoon gudaha ah ayaa kor u kacay. Wadamo badan ayaa cunaqabateyn dhaqaale ku soo rogay dalkaasi South Africa. Ciyaarihii caalamiga ah ayaa laga saaray. Shirkado badan ayaa istaajiyay xiriirka kala dhaxeeyay waddankaasi South Africa. Ugu dambeyn
1990kii Mandela ayaa la soo deeyay kadib dhaqdhaqaaq siyaasadeed kadib. Sanadii 1994 waxaa dhacay doorashadii ugu horreysay ee xor ah oo qof kasta uu codeeyay, madow iyo caddaanba. Nelson Mandela ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee madow ah ee ka taliya dalkaasi South Africa. Ugu dambeyn, sheekadii South Africa waxay noo muujinaysaa in dulmiga iyo cadaalad darrada ay weligeed socon karin. Sidoo kale, halganka, samirka iyo cafiska ayaa keeni kara isbeddel dhab ah. Dadka midaysan ayaa jebin kara nidaam kasta oo cadaalad darre ku dhisan. Mandela ma aarsan markii uu xukunka qabtay, wuxuu u doortay waddada cafiska, midnimada iyo dib u heshiisiinta. Sheekadan waxay xambaarsan tahay qiso xanuun badan balse leh dhammaad farxad leh. Waa tusaale oo qof walba wax ka baran karo, gaar ahaan kuwa dulman ama kuwa rajo beelay. Haddii aad ka faa'iidaysatay sheekadan, fadlan like saar, subscribe dheh si aad u hesho fiidiyogeena xiga. Kommentiga hoos ku reeb maxaad adiga ka baratay sheekadan. Mahadsanidin.